كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan joognaa meesha lagu dhaqo muslimiinta magaalada Linköping waddanka Sweden. waxaan diyaarinaynaa ilmo yar oo dhintay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa waalidkiisa sabr iyo iimaan inuu Ilaahay ka siiyo. waxaan noolnahay xilli yacni dadka qaflada ay ku nool yihiin aad ay u badan tahay, haddana dhimashadana aad ay u badan tahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu khaatmadana wanaajiyo. xanuunadii way bateen, cudurradii way bateen, isdilkii wuu batay adduunka maanta. Ghafla ayaan ku jirnaa. waa baraarujin oo idinkaga soo diraayo qolka meydka lagu dhaqo magaalada Linköping. baraarujin wadakir fa ina dikraa. Ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay baraaruji. baraarujinta waxay anfacdaa qofka mu'minka ah. kelmadeedan waxay ku socotaa qof kastoo mu'min ah inuu kuwaana qaato oo u diyaar garoobo, maadaama maanta dadkii ghaflada ay ku jiraan. يعني dhimashada iyo geerida adduunkana aad ay fara badatay. waxaan baraarujintan usoo diraa nafteeda iyo walaalaha muslimiinta meel walbay joogaan. waa baraarujin ay ku socoto qof kastoo mu'min ah inaan u diyaar garowno maalinka noocan oo kale ah. meeshaan aan taaganahay waxaa lagu dhaqay oo lagu aasay dad iga aqoon badan oo iga shahaado sareeya. waxaa lagu dhaqay oo lagu aasay dad iga dhalinyarnimo badan oo iga caafimaad badan. geerida iyo mowdka ma kala socdo, macruuf baa ma dhalinyara mise waa qof weyn, dadkoo dhan way u siman yihiin. walidaalika waxaa loo baahan yahay maalinka noocan oo kale inaan usoo diyaar garowno limithli hada, inaan usoo shaqaysanaa walaalayaal loo baahan yahay. waa baraarujin idinku socotaa. adduunyada wayna mashquulisay, laakiin ilaahay wuu ammaanay dadka aynan adduunyada ka mashquulinin dikriga ilaahi subxaanahu wa tacaala. rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah. waxaa la rabaa marka adduunyadan inaysan naga mashquulinin dikriga ilaahay, inaysan naga mashquulinin salaada inaan tukanno. waxaa loo baahan yahay adduunyada inaysan naga mashquulinin inaan ilaahay xasuusanno. maalinka noocan oo kale inaan u shaqaysanno, inaysan adduunya naga mashquulinin. maalin walboo na dhaafta qayb annaga naga mid ee cimrigeeni baa nusqaamay. adduunyaan ka fogaanaynaa, aakhira u dhawaanaynaa. waxaa loo baahan yahay marka inaan kuwana qaadano. maanta fursadaan haysanaa waa nool nahay, laakiin dad badan oo fursad haysanaa jira. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa khaatmada inuu noo wanaajiyo. la soco qaybta labaad markaan aasno kadib. sida arkaysaan waxaan dhammaystirnay duugtii ilmihii yaraa. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa waalidkii dhalay inuu sabr iyo iimaan ka siiyo. runtii wax ina sugaayo waaye. mar walbaan meeshaan imaado waxaan ku fikiraa lambarada sida arkaysaan 220 aan ku duugnay. lambaradu way socdaan. yacni mar walba waxaan ku fikiraa lambarka soo socdo yuu noqon doonaa, qof unbuu noqon doonaa oo magaalada nala degan ama magaalada marti noogu ah. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa khaatimada inuu noo wanaajiyo. walaalaha waxaan rabaa baraarujintan inaan usoo diro oon dhaho aan ghaflada ka kacno. xanuunadii way bateen, cudurradii way bateen, dagaaladii adduunka way bateen, qofba sababuu ku dhibanaa, shirarkii way bateen. muhiimadda waxay tahay dhammaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkoo dhan uu ku xukumay kullu nafsin daa'iqatu lmowt. sababta nooceeda doonta ha noqoto, qof kasta uu dhiman doonaa. maalinka noocan oo kale aan u shaqaysanno waana miduu ilaahay ina leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat ligada. ilaahay wuxuu la hadlaa ahlu iimaan, markaasu wuxuu leeyahay naf walba beri waxay shaqaysatay ha ka fiirsato waxay shaqaysanayso. marka aan maalinka noocan oo kale walaalayaal u shaqaysanno. ghaflaan ku jirna adduunyada, xumaantii way badatay, internetka xumaan fara badanaa lagu faafiyaa, dhibaatooyinkii way bateen. aan nafteena waaninno, aan dhahno kullu nafsin daa'iqatu lmowt. yaa nafsu u shaqaysa maalinka noocan oo kale ah. mararkaan wax joogayna waxaa la yaabaa dadka iyagoo qabriga kor taagan baa waxaa arkaysaa dad sigaarka ku dul cabaaya, dad waxaa arkaysaa ghaflo ku jiro iska sheekaysana iska qoslaaya. saxaabaduna waxay ahaayeen Cuthmaan ibn Affaan radiyallahu canhu, isagoo janno loogu bishaareeyay, haddana markuu meyd duugo siduu u ooynaayo wuu soo xijiray, wuu murugoon jiray. markaasaa la qaadi jiray isagoo soqsan. markaas wuxuu dhihi jiray waxaan maqlay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo leh qabriga waa beeraha jannada ka mid ah, ama waa xufra min xufri niiraan, waa godadka naarta ka mid ah. ilaahay waxaan weydiisanaynaa qabriga inuu nooga dhigo beer jannaad. walaalayaal aan u shaqaysanno. jazaakum allahu khayran. baraarujintaan sii faafiya biidni illaahi tacaala si walaalaha dhan ay u gaarto. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.